safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya ambassador Maxamed Cali Nuur America ayaa waxa uu soo dhaweeyay tilaabadii baarlamaanka Soomaaliya oo maanta codka aqlabiyadda ugu ansixiyay ra'iisul wasaaraha cusub Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. waxaan bileenayaa ra'iisul wasaaraha cusub oo maanta ay baarlamaanka si aqbal leh ay ugu doorteen ra'iisul wasaaraha ambassador Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake waxaana ayagana aan waxaan bileenayaa baarlamaanka oo si aqbal leh u doortay ra'iisul wasaaraha. dhinaca kalena safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya ambassador Maxamed Cali Nuur America ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya inay isdejiyaan isagoo sheegay in howlgallada ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ay ka wadaan guud ahaan dalka ay tahay in lagu xaqiijiyo ammaanka dadka Kenyaanka iyo dhammaan dadka ku nool dalkan Kenya maadaama maalinta biri ah loo dabaaldegayo ciidda Masiixiga ee Christmaska. waxaana dowladdu ay qaaday tilaabooyin dheeraad ah sida uu sheegay si ammaanka loo xaqiijiyo isagoo sheegay inaan dadka Soomaalida ah lagu bartilmaameedsanaynin. waxaan rabaa inaan ka hadlo caawa Nairobi ama Sandhe Kenya maadaama ay berito ay tahay maalmaha socdana ay tahay maalmaha ay Masiixiga ciidaan halkan Kenya ciid ka tahay Christmaska iyo sanadka cusubba in howlgallo ay bilaabeen ciidanka amniga ee waddanka Kenya taana ay keento in xaafadaha ay Soomaalidu degan yihiin ayagana baaritaan laga sameeyo. marka dowladda Kenya waa la hadalnay waxayna loo xaqiijiyeen in howlgalladan aanay ahayn howlgallo lagu bartilmaameedsanayo Soomaalida laakiin ay yihiin howlgallo la rabo in amniga waddanka Kenya lagu ilaaliyo maadaama ay tahay saan sheegay Christmaska ay soo socoto dadkan ay fasax ku jiraan ay amnigooda ilaalinayaan. marka dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa in ay ayagana ay markii ay ciidanka arkaan dukumeentiyada la soo baxaan ay sharciyada haystaan ay mataqaanaa laaluushka iska dhaafaan. haddii la qabtana anaga safaaraddan oo heegan baa ugu jirnaa sidaan awal samayn jirnaa sameynayna insha Allah inaan ciddii la qabto ama la xiro noo soo sheegaan anagana aan kasoo dayno haddii la yiraahdo.